nabadgelyo korkiina too idil ahaantiinba waa anigoo warsamo ah. barnaamijkeennan waxaynu ku soo qaadi doonnaa oo aynu kaga hadli doonnaa sooyaalka fanka Soomaaliyeed. fanka Soomaaliyeed intii ay Soomaalidu jirtayba wuu jiray marxalado kala duwan iyo waayo kala duwanna uu soo maray. barnaamijkeennana waxaynu si gaar ah diiradda ugu saari doonnaa fanka casriga ah ee Soomaaliyeed. sida la yaqaan, Soomaalidu waa dad murtida iyo suugaanta hodan ku ah. siyaalaha ay u soo gudbiso dhacdooyinkeeda, dareenadeeda ama waxyaabaha kale ee muhiimka u ah waxaa ugu caansanaa adeegsiga maahmaahda iyo maansada. dhanka kale, maansada waxyaabaha loo isticmaali jiray waxaa ka mid ahaa hawsha, kaftanka, haasaawaha, madadaalada iyo halxidhaalaha. sidaa darteed waxaa dhici jirtay in mar kasta golayaal lagu soo bandhigo iyo cawaysyo abaabulan oo bulshadu ku wadaagto maansada, gaar ahaan heesta qaybteeda haasaawaha iyo madadaalada ah, taasoo lagu ladhi jiray ciyaar jiib iyo jaan leh. waxaana kuwooda ugu caansan ka mid ahaa wiglada, hirwo iyo dhaantada, kuwaasoo qaarkood lagu luuqayn jiray. iyadoo ay sidaas ahaan jirtay ayaa bartamihii qarnigii 20aad isbeddel weyni ku dhacay fankii la yaqaanay, waxaana abuurmay fanka cusub ee casriga ah ee aynu maanta naqaano ee myuusiga leh. 1945kii ayay bilaabatay luuq cusub oo lagu heeso loona bixiyey balwo, taasoo nin la odhan jiray Cabdisanamo ku balweeyey erayadan: balwoy hoy balwoy, balwoy hoy balwoy, waxay beleeyey mooyaane, balwoy hoy balwoy, waxay beleeyey baabuur. dabadeeta magaceedii ayaa la sharaystay oo dadkii iyo culimmadii ku kaceen, halkaas ayayna ku hagaastay balwadii. sababta magaceeda loo diiday ayaa ahayd iyadoo loo qaatay in balwo tahay balaayo. kadib baa loo guuray hir kale iyo heellada oo laba ah. hees ciyaareedadaa hore aynu soo sheegnay ayaa kolkan shaaca qaatay, waatuu cali sugula lahaa: heellooy heellaloy, heellooy heellaloy, heellada mar ha la haloosiyo. hiboy amba waan ku haybinayay in abtimeeye haweyn tahay, hubaal awadaa cishqiga hayaa heddaydu jaraan u halisahay, hilbiyo kala qalan ileen hadal, haasaawaha weynu wada hayne ee heshiinaya maxayna kala helay. ismaaciil cagaf heellada waa kii ku lahaa: murtidaan tiriyaa miyiina u baxdo, maqashay ku ceshaan magaratadu, magaalada waa u madadaalo, macdaaruhu timirtuu ku miisaan. dabadeed sidaas ayay heelladii ku ambabaxday oo lagu ladhay laxan iyo myuusig dhalad ah oo Soomaaliyeed, iyadoo ay markaas soo baxeen abwaano iyo hoballo Soomaaliyeed oo qaarkood jacayl darani asiibay oo dhab ahi, kuwaasoo inala wadaagay xaaladahoodii iyo dareemadoodii gubayey ee shidayey. dabadeed ummaddiina waxa ay ku qaabishay gacmo furan, ilaan waa ummadiyada lafteedu jacaylku ku horsanaa. waxaana raggaa ka mid ahaa Ismaaciil cagaf, cali sugulle, qarshe, xuseen ow faarax iyo mushtaeg, waa ragga jacaylku naafeeyey. sidaas bay dabadeeto heelladii kol dambe loogu bixiyey qaraami, ama halkii heellana la geliyey hees. kadib ayaa sidaa loogu aqoonsaday heesaha qaraamiga ah, ama ay qaateen magacaas. heesaha soo socday bilowgii 50aadkii qarnigii hore ilaa bilowgii 60aadkii isla qarnigaas. kolkaas kadib oo heesfaneeddu hir kale usii guurtay. heesaha qaraamiga ah waxay leeyihiin laxan, luuq iyo tumis dhalad ah oo barbilow iyo curad hana qaaday u noqday fanka Soomaaliyeed. heesaha qaraamiga ah oo mid waliba leedahay luuq iyo laxan u gaara oo kolka la maqlo la garto heesta ay tahay. laxannada iyo codadka kala duwan oo gaadho sodomeeyo. kuwooda ugu caansan waxaa ka mid ah raaxeye, burcaawi, riftoon, xaafuun, subcis, nugul, aroor, kaar, ciil. haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso, waa maxay ereyga qaraami ama qaraam? qaraami waa erey asalkiisu carabi yahay, macnihiisuna waa jacayl, waxaana kolkii u horraysay inta la garanayo adeegsaday aabbihii jacaylka oo cilmi boodhare. dabadeed ereygu sidaas buu ku Soomaaliyoobay oo ku noqday magac lagu garto heesaha qaraamiga oo macnaheedu yahay heesaha jacaylka. cilmi boodhare waa kii lahaa: haddii il wax qabanayso oo lagu qaboobayo ama qurux la daawado kolun aadmi ku qancaayo, aniguba qadraan soo arkiyo qaararkii hoodane, ha yeeshee qaraan baygu galay qalay naftaydiiya. saas buu qaraamku dabadeed ku noqday kuwooda loogu jeceliyey heesaha Soomaaliga ah ilaa maanta, ee marna laga xisagoyn dhegaysigooda, ilaa ay noqdeen waxa keliya ee laysku raacsan yahay. waa tii hal abuur Maxamed Haykal lahaa, isagoo cabbiraya halka qaraamku nafta u taagan yahay: qur-aankaan oo xifdiyey, xadiiskana qaybsan baan qaraamiga suuban iyo qaaciga ku caweynaya. dhanka kale, kolka dhegaysigooda laga yimaado, waxay noqdeen halqabsiyadaasoo dadku si maalinlaah u adeegsadaan oo guri walba galay, dadkuna isku dabiibaan ama ku gudbiyaan farrimahooda. bal haddaba halqabsiyada qaraamiga aynu ka soo qaadanno dhowr. tufaax ku yaal tolmon ayaan hadba taaban leeyahay, qaraamka inay ku qiirooto anqaado qasiidadeedii. haddii lagu dilo anaa damqado oo laysuma daayo laba isdoonayso, dadkeennu waxyeelladay door bidaan,
ku doortaya may ku daayaan. maankiyo madaxa ay kala maqanoo idina waygu maadsanaysaan. waddada loo maraa wadiyaallaaye wardheer dal wanaagsanayda, sidii shimbirbaadka beed gelisaan boggun ku hayaa mid lay baday. culayskay saaran ciirciiroo caguhu qaban waaye ciidda dhulkoo calooshaani caafimaad qabin ciilowba. kantaasha wadnaha ay guud sudhaniyo waa geeri jacaylnimu galay, sidii cambaruudka yaa cuno oo cankun ku hayoon calaalinay. bogayga waran baad badheedh u dartee bagaadii dishoodan ii bixin. booqasho keliyaa badhiga hadhaye bagaadan iina soo baridayn. barooro diiqdu meydka waa ka badhe bagaanad islahayn biyaan quban. anigoo aakhiraan u dhoofahaye dhexyaray qabrigayga soo dhigo. dhawaaqaygu dhaawac kugu noqoyo anigoon ku dhakhtarin laguma dhayo. cishqigay ribaday ku soo riday oo kuu raray sidii reere geediya. iskaasiiyo si kula noqotee oo kuu samrayaaye nafsiga sido. sidaa darteed waxaynu odhan karnaa qaraamigu waxa uu ka mid yahay quudka soomaalida ee nafsiyaddeedu ku liibaanto. dhalin iyo waayeelna ay isku sii waqaabilaan. fadlan kanalka Xaguuga TV subscribe saar, lana wadaag barnaamijka asxaabtaada si lana soco kuwa dambe. mahadsanidin.